dowladda Masar ayaa bilowday dagaal diblomaasiyadeed oo lagu go'doominayo dalka Itoobiya oo xiisado colaadeed imika ay ka dhex taagan tahay iyaga iyo dalka Soomaaliya kadib faragelintii qaawaneed ee Itoobiya ku soo qaaday sohdimaha dhulka Soomaaliya iyadoo dhawaan Itoobiya ay safgarad been ah la gashay maamulka Somaliland ayaa arintani waxa ka dhalatay xaalad aysan Itoobiya u arkin mid weji wanaagsan leh waxaana xiisadaas Itoobiya ay abuurtay ka dhashay cadaawad hor leh oo Itoobiya dariskeeda ku abuuratay tanoo fursad u noqotay dalka Masar oo isagu saaxiib la ah cid walba oo Itoobiya dirir kala dhaxayso madaxweynaha dalkaasi Al-Sisi ayaa dhawaan sheegay inay si adag u garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliya isla markaana hadiiba loo baahdo ay Masaaridu ka barbar dagaalami karaan walaalahooda Carbeed ee Soomaaliya waa sida uu hadalka u dhigay tani waa fariin adag oo kamid ahayd hadaladii uu yiri markii ay si wada jir ah shirjirayd wada qabteen madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay kaloo ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo wajihi lahaa xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka siyaasiyiin iyo xildhibaano ayaa ku amaanay xiriirkan wuxuuna Dr. Jamaal Salaama oo ka waramaya maamulka gooni ugoosadka ee Somaliland oo sheegtay inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale tan iyo sagaashamaadkii inkastoo aysan jirin dawlad ictiraaftay Somaliland oo Soomaaliya madaxbanaanadeedu waa muqaddas maadaama ay xubin ka tahay ururka jaamacadda Carabta Jamaal Salaama waxa uu intaas ku daray in Soomaaliya aysan awood u lahayn inay dhulkeeda oo dhan maamusho ama difaacdo waana halka Itoobiya uu damacu ka galay iyadoo haatan ay doonayso Itoobiya inay badda cas marin ka hesho iyadoo soo maraysa dhinacaas iyo maamulka Somaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri xaaladda Soomaaliya ka jirta waxay la mid tahay ama u yara dhowdahay tan Yaman oo way adag tahay in Soomaalida siyaasad lagu maamulo sida Yaman oo kale haddii ay xaaladda Somaliland ka taagan ka sii darto oo uu dagaal ka dhex qarxo Itoobiya iyo Soomaaliya way adag tahay in la xakameeyo dagaalkaas una malayn maayo in dagaalka Soomaalida ay mahadin doonto Itoobiya oo iyada lafteeda waa Itoobiya ayaa waxa dhibaato ka haysata gudaha dagaalo qowmiyadeed ayaa ka dhex socda gudaha Itoobiya oo aan loo hayn wax xal waxa fariimahan uu madaxweyne Siisi u diray Itoobiya ay u muuqdaan kuwa muujinaya xuduudda dawladda Masar Dr. Maxamed Abu Ceela madaxa xisbiga Carabta Naasiriyiinta ayaa sidoo kale bogaadiyay fariimaha madaxweyne Al-Sisi intii uu socday shirkii jaraa'id uu la yeeshay dhigiisa Soomaaliya ee ku saabsanaa xadgudubka ay Itoobiya ku hayso Soomaaliya qayb kamid ah dhulkeeda isagoo carabka ku adkeeyay in fariimahaasi ay muujinayaan awoodda dawladda Masar ee fog iyo midda dhowba madaxweyne Al-Sisi had iyo jeer waxa hadaladiisa adag laga dheehan karaa oo qof kasta tusaya siyaasadda Masar ee dhisan ee degan iyo in Masar ay taageerto madaxbanaanida dawladaha isla markaana ay si cad u diido dawlad kasta oo gobolka ka dhisan in arrimaheeda soo farageliso dawlad kale waxayna had iyo jeer ka shaqaysaa xoojinta nabadda la kulanka madaxweyne Siisi dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh wuxuu daliil u yahay in Masar ay si weyn saameynteedii wali uga jirto geeska Afrika wuxuuna kulankan uu ahaa mid lagu xoojinayo xiriirka Masar iyo Soomaaliya kor u qaadista nabadda iyo amniga Soomaaliya ciribtirka argagixisada si loo gaaro himilooyinka la hiigsanayo horumarinta iyo xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan mustaqbalka wanaagsan wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda Danjire Cali Al-Xafni ayaa xaqiijiyay in khudbaddii madaxweyne Cabdulfataax Al-Sisi ka jeediyay shirkii jaraa'id ee wada jirka ahaa kadib kulankii uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ahaa fariin loo diriyay Itoobiya loogana digayay inaysan cidna ogolaan doonin in la isku dayo looguna digayo inaan cidna loo ogolaan doonin amaba la isku dayo in xoog lagu qabsado dhul ay leedahay Soomaaliya sidoo kale ma jiri doonto cid isku dayda in Masar tijaabiso ama u hanjabto walaalaheed gaar ahaan haddii walaalkaasi uu codsado in la garab istaago Danjire Cali Al-Xafni waxa uu intaas ku daray in madaxweyne Al-Sisi uu khudbadiisa ku soo celceliyay taageerada ay Masar u fidisay midnimada iyo wada jirka dhuleed ee Soomaaliya isla markaana uu diiday in la farageliyo arrimaheeda gudaha taasoo wiiqaysa qarannimadeeda wuxuuna sidoo kale si cad u diiday heshiiska sharci darrada ah ee baalmarsan shuruucda caalamiga ah ee Addis Ababa la gashay Somaliland oo ah gobol ka tirsan dhulweynaha Soomaaliyeed Al-Xafni ayaa tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya uu u tagay Qaahira inuu la kulmo madaxweyne Siisi si wada tashi looga yeesho arrimaha soo cusboonaaday ee Itoobiya iyo Soomaaliya iyo waliba sidii Masar ay uga caawin lahayd Soomaaliya xagga diblomaasiyadda dhaqdhaqaaqyada laga sameeyo fagaarayaasha caalamiga ah gaar ahaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay si looga jawaabo daandaansiga Itoobiya midnimada iyo wada jirka dhuleed ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa saaxiib dhow la ah Masar waxayna xiriirkooda soo jireenka ahi u sahlaysaa inay taageerto dhibaatada ay ku jirto haatan Soomaaliya kadib markii Itoobiya ay ku xadgudubtay madaxbannaanideeda
mowqifka qaahire ee ilaalinta mabaadida iyo weliba ixtiraamka axdiyada iyo xeerarka caalamiga ah waa mid cad. waxaa taa u raaca in Masar mar kastaaba ay doonayso xasiloonida dalalka deriskeeda ah, gaar ahaan qaaradda Afrika. balse arrinta ah in Itoobiya uu damac ka galo dhul Soomaaliyeed waxa ay tahay wax lala yaabo oo mudnaa in la cambaareeyo, waayo waxaa loo arkaa weerar toos ah oo ay ku soo qaaday deegaan iyo dal ka tirsan Midowga Afrika, ururka IGAD, suuqa bariga iyo koonfurta Afrika ee COMESA loo soo gaabiyo, isagoo madaxweyne Sisi dhinaca kalena ka digay in Addis Ababa haddii ay aqoonsato Somaliland ay ka dhigan tahay in Itoobiya ay taageersan tahay goosashada iyo kala qaybinta dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. dhanka kale Masar ayaa gabi ahaanba diidan kala qaybinta Soomaaliya iyadoo tixgelinaysa xiriirka dhow ee ka dhaxeeya labada dal ee soo jireenka ah, inkastoo falka Itoobiya ku kacday uu ka hor imaanayo shuruucda ama heshiisyada caalamiga ah iyo mabaadida iyo ujeedkii loo aasaasay hay'adaha qaramada midoobay. waxa uu ka digay in Itoobiya ay ku shaqayso siyaasad hal dhinac ah iyo go'aan iyada kaliya u gaara, sidii ay horeba ku samaysay arrintii biyo-xidheenka webiga ee weli khilaafkiisu dhammaanin, ayna iska indhatirtay xuquuqda dalalka kale, taasoo hadda khatar ku ah xasiloonida gobolka iyo weliba xitaa nabadda amniga ee dunida. xiriirka qotada dheer ee ay ku midaysan yihiin labada dal ee walaalaha ah waa Soomaaliya iyo Masar, sidoo kalena ay ka wada tirsan yihiin ururka Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika iyo ururka Iskaashiga Islaamka. wuxuu ka dhigan yahay mid adag, iyadoo Qaahira ay garab taagan tahay sidii Muqdisho nabad loogu soo dabaali lahaa, lagana hortagi lahaa argagixisada iyo dhammaan caqabadaha Soomaaliya ku habsaday 12 sano ee la soo dhaafay, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay xiriirka dibadda. waxaa intaas u dheer in Masar ay mar walba gacan ka geysato shacabka Soomaaliyeed dhibaato kasta iyo masiibo kasta, ha noqoto mid siyaasi ama mid bini'aadantinimo. xiisadahan dartood ayaa tiro badan oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ay ka dhawaajiyeen halka ay Masar ka taagan tahay xiisada khatarta ku ah xasiloonida geeska Afrika, waxayna carabka ku adkeeyeen in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya, maadaama Dr. Ayman Muhassab oo ah ku-xigeenka gudaha arrimaha carabta ee aqalka sare uu dhankiisa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay kulanka ay isugu imaanayaan madaxweyne Cabdulfataax al-Siisi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud, isagoo tilmaamay in kulankaasi uu ku saabsan yahay ka doodista dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee labada dal, qaabkii loo horumarin lahaa iskaashiga wadajirka ah, sii wadida iyo xoojinta isku xidhnaanta dhinacyada kala duwan, iyadoo laga ambaqaadayo xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo sidoo kale xaaladda gobolka, gaar ahaan geeska Afrika. Muhassib oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Masar ayaa sheegay in Masar mowqifkeedu adag yahay, isla markaana ay garab taagan tahay Soomaaliya oo ah dal ay walaala yihiin, isla markaana ay taageerto amnigeeda, xasiloonideeda, iyadoo laga hortagayo isku dayga lagu wiiqayo midnimada. kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay inuu heshiis la gaaray hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, heshiiskaas oo Itoobiya u ogolaaday muddo 50 sano ah inay hesho marinbiyood ku yaala badda cas oo dhererkeedu dhan yahay 20 kilomitir, iyadoo sidoo kalena adeegsanaysa dekedda Berbere, isla markaana halkaas ka furan rabta saldhig military. arrimahaas oo dhan ayay dowladda Itoobiya kaga bedelatay inay si rasmi ah Somaliland ugu aqoonsato jamhuuriyad madax bannaan. xildhibaanka ayaa intaas ku daray in dhaqdhaqaaqyadaasi ay halis ku yihiin midnimada, qaranimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida uu qabo dastuurkeeda iyo axdiga Midowga Afrika iyo qaramada midoobay, isagoo carabka ku dhuftay in ixtiraamka madaxbannaanida Soomaaliya ay tahay furaha nabadda geeska Afrika. sidoo kale xildhibaan Naadir Al-Khabiiri oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in socdaalka madaxweynaha Soomaaliya ee Masar uu ka turjumayo doorka muhiimka ah ee Masar ay ku leedahay qaaradda Afrika, gaar ahaan booqashadan Xasan Sheikh oo ku soo beegantay xilli aad xasaasi u ah marka loo eego waxa ay Soomaaliya wajahayso oo ay ugu horeyso xadgudubka ay Itoobiya ku hayso madaxbannaanida dhulka Soomaaliyeed. waa barnaamijkeenu xulashada dunida oo aad kala socoteen warbaahinta ballaaran ee Horfadhi Media.